لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر بالروض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر بالروض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر الله 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 أكبر. إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر بالروض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. العاقل كل العاقل من عرف الحقيقة، من استعد للموت ولما بعد الموت، من عرف مقصد حياته. العاقل كل العاقل، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. qofka caaqilka qofka dhaqaalaha badanna maaha, qofka adduunyada urursada maaha. addunyaa daaru man laa daara lahu buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. adduunyadu waxay daar u tahay ninkaan aakhira daar ku lahayn. wa maalu man laa maala lahu, dhaqaalahan adduunyadu wuxuu dhaqaalo u yahay ninkaan dhaqaalo aakhira ku lahayn. lahaa yajmacu man laa caqla lahu, adduunyada waxaa ururiya buu nebigu yihi ninaan caqli lahayn. caaqilku waa kee? waa ninka garta wixii adduunya kii keenay, waa ninka garta kii keenay iyo wuxuu u keenay iyo meesha loo socdo. man akyasu nnaasi wa akramu nnaasi ya rasuula allah. masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam buu nin soo galay, nin acraabi oo reer miya. markaasuu su-aasha nebiga u jeediyey, yaa rasuul allah, dadka ninkee baa ugu caqli badan uguna sharaf badan buu ka yidhi. umaba dheeraane wuxuu yidhi, akharuhum lilmowti dikraa wa ashadduhum isticdaadan lahu ulaa'ika hum lakyaas dahabuu bisharafi addunya wa karaamati alaakhira. dadka waxaa ugu caqli badan uguna sharaf badan kuwa inta badan geerida iyo aakhira xasuusanaya, maalinba maalinta ka dambaysana saayida aakhira ziyaadsanaya. kuwaasaa cuqaala buu nebigu yidhi, sharaftii adduunyada iyo karaamadii aakhirana kuwaasaa la tegay buu yidhi. sharafta aakhiro iyo karaamadii aakhiro iyo karaamadda adduunyada dadka ilaahay yaqaanaa la tegay. dadka meeshay ka yimaadeen iyo meeshay u socdaan u kala caddahay baa yaqaanaa. يا أبا ذر جدد السفينة فإن البحر عميق وأكثر الزاد فإن سفر طويل. بنبي كويل أبو ذر، يا أبا ذر يا أبا ذر بكير الدوني ذا جديد سو بدو يقول دار توي كل قية سعيدنا الزياد سو سفر كودير يا هاي حكود دجن ولا الكيجا مسلم كو شو وقتي وحال كيجا إلى هاي أوجي هاي حكو قناعة في الدين لما أقوله قناعة في الدنيا بالله أقول يحي طاعدي عبادتي iyo diinta intaad haysato waliga ha ku qancin, ama adduunyada iyo kasbiga iyo arsaaqada inta ilaahay ku siiyo ku qanca. taasaa mustaxab oo la jideeyay. wa abadar azhadu ummati wa a'baduha bu nabi guri, wa annika ummadayda ugu zaahidsan ugu cibaado badan. man araada an yandura ila Isa ibn Maryam falyandur ila Abidar bu nabi guri. ninkii doonaya nabi Isa inuu arko Abadar al-Ghifari ha arka buu zuhdigiisa iyo sidoo adduunyada uga zaahiday. kaasaa nebigu dardaaranka soo mariyuu leeyahay, abaadar oo doonida jadiidso, iimaanka jadiidso, qalbigaaga adduunyada kala dagaalam, qalbigaaga cadamada lacagta maxabada lacagta kala dagaalam. baddu way ku liqi haddii kale, shahawaad iyo qaflad baa adduunyada lagu sheeriyo way ku liqi haddii kale. wa akthar zaada fa inna safara tawiil, saayidana ziyaadso safarku uu dheer yahay buu ka yidhi Abu Dar, oo safarku uu dheer yahay. sayidina Abaa Hurayra radiyallahu anhu ayaa sankaraadkii ooyey. markaasaa lagu yidhi Abaa Hurayra maxaa loo ooyeysaa?
صاحب رسول الله باته وحيد أبكي لقلة زادي وبعد سفري صعيدا وطيري ذا يا سفر كي سوق يا سلهين بيولي هذا أبو ذر عمر رضي الله عنه وأنك النبي يقولي لو كان بعد النبي لكان عمر هدي عنك النبي دبي من لها عمر بن النبي نقول لها أبو رسول كويلي جنة قليب النبي يقول هبينك معراجك قصر جنة كويا لا يا ناركي قبر حوراء يا يقصوا بحريب رسول كويلي markaas aan ku dhig liman hada alqasr gurigan ayaa loo diyaariyay qasriga inta leeg waxay tiri nin carab ka dhashay loo diyaariyay aniga ba carabe ma cid kala ha nin quraysh loo diyaariyay quraysh ka dhashay aniga ba quraysh ma cid kala ha nin ummadda nabi maxamed loo diyaariyay aniga ba muhammad ma cid kala ha baytro umar ibn khattab qasriga loo diyaariyay hada umar ولكن محيري مساجد النبي خطبته كجديه وحيري لو نادى من السماء كلكم داخلون الجنة إلا رجلا واحدا لخفت أن أكون هو هدي السماء اللي قد وقول لي بني آدم كنا الجنة يقليان هل ننكليا نار كقلايا نقاسيني أني تهانو ملين بورنجري قناعة في الدين لما أقوله ولا الكيغ مسلم كو دين انت هيستوها كو قنعن الدوية انت هيستكو قنع تاسا مستحبة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قرنيا قرون تأدوية الصومر تقرنيا وخير من نابي جوجين ساسين إلهي وقعب سونيين الدوية لما وينين آخرة لما وينين أسبابتي أشياء لما وينين عملك الصالح إيمانك لما وينا مخلوق لما وينين إله خالق عمر كيسان لما وينا من لم يرضى بقضائي ولم يصبر البلاء ولم يشكر على نعمائي فليخرج من بين السماء وأرضي فليلتمس ربا سوائي بإلهي حديث القدس من لم يرضى بقضائي قضاها وحي أنكو حكم أدونك الرالي أنكو أهين نعمة إذن أن يقول شكريين بلايا أنو كيننا كسبرين سمدي أرلد عنك سمستها إيقتوا ملك الحقبتو ربك لنها سمستها إلهي إلى أين حكون مشغول شهواتك أرزاقت هنقري واحد عنا يسوينون كسجين طاعة إلهي لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله أي عن طاعة الله قرآنك ودعوت لما يسترن ويان ودعوت تامة إلهي ودعوت ينصينا وبتكاغو وبتكانوا الشقايا وبتكانوا ورديا يحولها قاد حسابين يستطاعة إلهي كسجين النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها الدويد هل كان جنة النار تبقى لقد يرسنيا هل كان لقد يرسنيا هل كان جنة لقد يرسنيا نارتين هل كانوا لقد يرسنيا أعماشي جنة اللي بقولي هل كان لقد قاذنيا أعماشي نارت اللي بقولي هل كانوا لقد قاذنيا فهيلو من طاعة إلهي أفر عدو بقرآن كإلهي نوشيغي أفر تعدو نيو الله والله دقالم نفتاد وعدو ويان إن النفس لأمارة بالسوء الديد وعدو جيني ويان فلا تغرنكم الحياة الدنيا شيطانك وعدو جيني ويان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا هود وعدو جيني ويان أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هادعين نفتاد شيطان كان هادعين الديد هادعين طاعة إلهي إنكو سيجين أدوية إلهي كوجعل هين أوصيا كوجعلين أوصيا نبينا عليه الصلاة والسلام أيام مالين كسحدي حصير صلي وكسحدي بقحدي بمركا فرها كقبتي عمر بعد دول يمدول للميي وكوكا عين نبي عليه الصلاة والسلام يا عمر بوكين محاكا وهنا وحول يا رسول الله وحيقوا هنا يقول هذه رسولك إلهي أيا بقحدي فرها كقبنيسا مركز النبي كوير يا عمر ما دي قشي كسنتا يعنيقا ما يكلا كامشي كسنية وحيي عنتملا هذه رسولك إلهي ومخلوق أقو خير بدنا إني دقحدو فرها كقبتو كسر يا قيصر نسر الدهب أي كس إحدان جوابت دقيسو ولالكيك مسلم كو وحيري يا عمر أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا يا عمر وما أدرى لك وهين إني الراحة الدوية يكون إحدى كالسناء قاتان إنكم الراحة آخرة نسك قادمكم مسلمكم مؤمنكم لدوني ما يصددتك كلينو فكرو مال بعضو سعوتا تدنبها كل وينات تنك كتك لغمالي
تدنبه هدي كل وين تتنا أدويد ويمعنان هاد بقف كنت العكت وزيادة راحة ومزيادة وجو هاد بقف كنت أدويد وزيادة والولي والبهار كاكو زيادة هاد بقف كنت إيمانك الدين تي قرب من الله ود وعدنا راحة يا وزيادة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قف عمل وناكسن لي ما دا عمل وناكسن شنطة وقتي والجمع كنت كتايا كمد عملك وناكسن من ذكر أو أنثى لبي يديك متكو دوني بهن نغضب إلى هيدا لبي يديك متكو دوني بهن نغضب وهو مؤمن حاله وقف قاس مؤمن هو إيمان لي هي فلنحيينه حياة طيبة وكنا لينا نلن لقول ولا توبوا وناكسن مفسرين توحيد هذا نلش وناكسن وصدح ويام قلبك وكود دقاء أرزاقك وكوب في اللاتا يددك وكود جعل هذا صدح لا وحي لهي كوب بلن قاعد إنه كوبهن إيماني عمل صالح ديدتك لك هلو إيماني عمل صالح marka lagu leeyahay diinta ilaahay qabso awaamirta ilaahay adkayso maaha adduunyada kaan nuqsaamayse bal adduunyadu way ku ziyaadaysaa raaxa ku ziyaadaysaa amniga ku ziyaadaya man kanat ad-dunya hammahu ja'alahu Allahu al-faghra bayna 'aynayhi wa farraga shamlahu wa lam yatihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu nika hamigiisa ka dhigay rasuulku adduunyada qabo oo ka fikira aakhiradii runta hayna daaqada ka saaray iska ilooba labada indhood inta u dhaxaysa faqriga loo saaraa arrimihiisana bari iyo galbeed baa rabbil ciza ku kala sheedhiya adduunyadana ma bahela intii Allah u qadaray mooyaane ومن كانت الآخرة همه نك همجيس كدجب رسولك الآخرة جعله الله غناه في قلبك يا غنى الراحل وقبوحيا وجمع الله شمله أرميه صدنا إلهي بس كوكو صدويا وأتت الدنيا وهي الراغمة الدنيا وحي أتما دا يدو سندليسن وهو سعتيت ما داب رسولك يري هكسي جسن طاعد إلهي والله كمسلمكو دين تروح إلهي نوسيي سيادون كان يا آخرة نقول لي بانو منافع الدين منفعة الدين تو آخرة كلية كمان بالعبنتين أدويدنا دين تلقو درجيا أدويدنا دين تعز لقوها ليا أدون كنا دين الراحة لقوها ليا أدويدنا دين تأمني إن بدقلي لقوها ليا يا طالب الرزق في الدنيا بقوته قد كمان أنت ودبر طاعد إلى وحي قد عفصا وهم قريس اسمع يا طالب الرزق في الدنيا بقوته تدور فيها من بلد إلى بلد أتعبت نفسك ما لست تدركه وضاع عمك في همر وفي نكد لو طرت بين السماء والأرض مجتهدا شربة ماء غير رزقك لم تجدي هداد هنقرق ملك استأمرته اسكدا أرلنا انتو تشغى كويدو هذا السماء الشغى لقوقو الشغى أجدون تشغى كبشبيو كوقرين مسو قادس أقصر عناءك فإن الرزق منقسم يأتي إليك ولو في جبهة الأسد تعبكاغا يريها ازدالين حوغاغا يا عقلغاغا يا عمرغاغا ادويدها كديعين كلا ريبو واخرادي هسيغن ارزاقدادو هدي اللباح فودي ستالو ايدا كو ايمانيسه لا تعجلن فإن الرزق ليس بالعجل هدقدقن ارزاقدا حوغي قفف لغوما هله رزق مكتوب باللوح مع الأجل ارزاقدادي عمرغاغا waxay ku qoran yihiin loox maxfuudka ma dhimanaysid illa arsaaqadaada dhameysatid ma heleen لو صبرنا لكان الرزق يطلبنا ولكنه خلق الإنسان من عجل هذا الصبر لهين رزق يسقى نسود دون لها لكن بني آدم كان اسك دغدغ مر والبا وحول بدغدغ بو كدونيا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم القائل الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا فإن لكل أم يتبعها ولدها أفر شيء قف كستو مسلم عيال لقربا إنه إيمانك سيل الصدو
inuu iimaanka jadiidiyo inuu iimaanka ziyaadsado iyo inuu iimaanka caalamka o dhan dadka ugu yeedho iimaanka diintaada ilaalso diintaada mar walba cusboonaysiiso diintaada baro diintan caalamka o dhan baa ilaahay ugu talagale risaalada caalamka siday u gaari lahayn adiga laga rabaa diinta ilaalso kuna qanac diinta ku qanac sayidina Umar radiyallahu anhu ayaa nin yahuudi oo saaxiibi ay yihiin oo reer bani quraydu madiina ku soo maray kalimaad diintii nabi Muuse kamida ayuu ka soo qoray wuxuu soo galay masaajidkii nabiga kaleey salaatu wassalaam Abdullah ibn Thabit iyo nabiga wada fadhiyo buu yimiday ala araduha alayka ya rasuulallah ya rasuulallah ma ku bandhiga nin reer bani quraydo saaxiibanahay baan kalimaad tawraada ka soo qoree fataghayyara wajhu an-nabiy alayhi salatu wassalam midabkii nabiga isbedelay balu firso midabkii baa isbedelay midabkii rasuulka Abdullah baa yidhi ya Umar thakilatka ummuk wa idha qablante nabiga wajigiisa miyaanan carada ka dareemin Umar u naxay warqadii buu tuuray wuxuu yidhi radina billahi rabban ilaahay rabbinimadiisa raalli baan ku noqonay wa bil islaami diinan diinta islaamkana waan ku qanacnay oo raalli baan ku nahay dhaqan ahaan raalli baan ugu nahay caqiida iyo cilmi iyo cibaadaba wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasuulan wa nabiyya nabi muhammad risaaladiisa iyo nabinimadiisana waan ku qanacnay buu raalli baan ku nahay fasurra nabigu uu farxay manbarkii buu fuulay wuxuu yidhi nabigu alayhi salaatu wassalaam ismac ya akhi dhagayso dad aan waxba ahayn oo la isku ekeysiyo dadkeenu isku ekeysiyaan iska daaye undur hadalka nabigu ku hadlay alayhi salaatu wassalaam law asbaha Musa fiikum thumma tabactumuhu wa taraktumuni la dalaltum buu yidhi haddii maanta nabi Muuse uu nidhex iman lahaa anoo nidhex taagan oo aad isaga raaci lahaydeen waad halowdeen buu rasuulku yidhi antum xadii min al-umam wa ana xadukum min an-nabiyyin nasiib ayaad ii tihiin buu ummadihii aan ka helay nasiib ayaan inni ahay buu nabiyadii aad ka hesheen buu rasuulku yidhi haddii nabi Muuse maanta uu iman lahaa uu shariicadiisii tawraad la iman lahaa ood aniga iga tagi lahaydeen ood isaga raaci lahaydeen waad halowdeen buu rasuulku yidhi antum xadii min al-umam ummadii ummadaha ugu khayr badnayd ummadda abuuritaanka ummadaha ugu dambaysa jannadana gelitaanka ugu horeysa ummadda jannada inta badan degaysa maadaama oo tihiin nasiib ayaa inagu helay buu nabigu nasiibkayga ay kii siiyey maadaama aniguna ahay nabiyada ugu dambeeyay imaamkii anbiyada maadaama nahay nasiib ayaad igu hesheen buu rasuulku yidhi alayhi salaatu wassalaam ee shariicadayda iyo diintayda iyo milladayda iyo sunnadayda iyo dariiqadayda ku qanca buu rasuulku yidhi alayhi salaatu wassalaam wax lagu badilan karaa ma jiro dariiqadiisa ummadiisii baa ilaahay naga dhigay ummaddan waa ummadaha ugu khayr badan ana wuxuu nabigu yidhi xurimat aljannatu cala alanbiyaa xataa adkhulahaa jannada nebiyadu gali maayana waa laga xarimay ilaa anuu aan ka gala maahine wa xurimat aljannatu cala alumam xataa tadkhula ummatii ummaduhuna jannada gali maayaan ilaa ummadaydu ay gasho maahine qabuuraha ayuu nabigu ziyaartay baqiic markaasuu u duceeyey wadidtu low annii ra'aytu ikhwaanii waxaan jeclaaday buulan jeclaysan lahaa inaan walaalahay arki lahaa asxaabtu waxay ku yidhaahdeen awalasnaa ikhwaanaka miyaan anaku walaalaha ahayn laa antum asxaabii ininku asxaabtay baa tihiine walaalahay waa kuwa aniga dabaday iman doona ee rumayn doona iyo kuwa aniga arag buu rasuulku yidhi sideed u garan doontaa saxaabadu waxay yidhahdeen dadkaas ma abad arakin adigu iyakuna kumay arag sideed u garan doontaa qiyaamaha halkay wajiga dhulka dhigayeen ee weysada marinayeen oo iftiimaysa ayay banka hawdka igu iman doonaan buu rasuulku yidhi 120 saf ayaa jannada galaysa buu nabigu yidhi dadka ahlu jannuhu waa 120 saf 8 saf baa ummadayda buu rasuulku yidhi atardawna an takunu ruba ahli aljanna qulna bala Abdullah ibn Mas'ud baa yidhi nabiga maalina uu riyo wuxuu nagu yidhi raalima ku tihiin ummadaha marka loo qaybiyo 4 qaybood dadka jannada galaya 4 marka loo qaybiyo qaybna noqotaan raalima ku tihiin asxaabtu waxay yiraahdeen ha atardawna an takunu thuluth ahli aljanna ahlu janna marka 3 loo qaybiyo qaybna noqotaan ma ku tihiin raalli baan hay yiraahdeen markaasuu nabigu yidhi walladii nafsu muhammadin biyadihi inni la arju an takunu nisfa ahli aljanna waxaan rajaynayaa oo ku rajaweynahay kay abuuray baan ku dhaartee jannada inaad kala badh inku degaysaan baan ku rajaweynahay buu rasuulku yidhi ilaahay ummadiisii buu inaga dhigay ilaahay uu ina karaameeyey wuxuu nagu karaameeyey waa maxay ummadihii hore shay keliya un baa laga rabay keliya bas
ilaahay inay ka yaabaan ay caabudaan. amaa ummaddan laba shay baa laga rabaa, laba shay. ilaahay inaad ka yaabto waa lagaa rabaa, ilaahay inaad caabuddo waa lagaa rabaa, aakhiradan inaad u shaqaysata waa lagaa rabaa, khalqiga adduunyada kugula noole bashariyadda inaad arrintaa ugu yeedhana waa lagaa rabaa. maqarin nebigu uu caddeeyey alaa laa nabiya bacdii walaa ummata bacdikum. mar buu nebigu cimrigiisa xajiyey, mar keliya. markiina wuxuu yidhi ani nebi iga dambeeye ma jiro, ummad iniga dambaysaana ma jirte. alaa falyuballaga shaahida minkum alghaa'iba. kiina maanta ila jooga i maqlayow kiina maqan gaadhsii buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam. balliquu canii adduu canii raximakum allah. allah inii naxariiste ammaanadaa qaadoo caalamka iga gaadhsiiya. allaahuma ansur man nasara diina muxamed. ilaahow ninkii diintayda u gargaar buu rasuulku yidhi. nadara allahu imra'an samica maqaalatii. maalinka wejiyadu ay madoobaanayaan banka qiyaame wejigiisa allaha nuuriyo ninka hal aayada ama hal xadiisa iga maqlay siduu iga maqlay ummadda u gaadhsiiyey buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam. ummaddan waa ummad ilaahay doortay. sharaftaa iyo karaamadda ummaddan waxay ku yeelatay waa shaqadii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam. shaqadaas markay caalamka shaqadaa laga tegayna dhibaatada maanta islaamka ku dhacday gaar ahaanna dalkeenna ku dhacday wax kale maaha, waa tarku dacwa. dacwadda markii laga tegay dhibaataa timiday. idaa tabaayactum bilciina waakhadtum adnaaba albaqar waraditum bizarci wataraktum aljihaada sallata allahu calaykum adil laa yanzicu xataa tarjicuu ilaa diinikum. markaad xoolodhaqata aad u jeesataan iyo beeraha qodataan, tijaaradda aad u kacdaan, shaqadii diinta iyo dadaalkii iyo halgankii diinta aad ka tagtaan, ilaahay dulli buu ina huwinayaa. dulli niga saari maayo, dulliga niga siibi maayo ilaa diintiina aad u noqotaan maahine. ilaa diinikum baa layidhi, ilaa diinikum. diintu waxay baaqi ku noqonaysaa salaada maaha, soonka maaha, xajka maaha. diintu waxay baaqi ku noqonaysaa fii kulli zamaan. waa in la helo juhdu dacwa. mar alli markay diintu hoos u dhacdaba ilaahay wuxuu soo saaraa culamaa rabbaaniyiina mar labaad soo cusboonaysiisa tawxiidka iyo iimaanka iyo akhlaaqda islaamka u lahaa. ninka mu'adinka markuu eedaamaya buu rasuulku yidhi shaydaanku qofka uu ka baxaa 16 mayl buu sii socdaa isagoo xagga dambe naqas ka sii daynaya. markuu mu'adinku aadaanka dhameeyana uu soo laamaa, qofka ayuu soo galaa. iqaamadda marka lagu dhiftana shaydaanku uu baxsadaa. markay iqaamaddu dhammaatana qofku soo galaa, salaadiisii iyo qofkii buu kala dhex maraa, wixii uu iloobay buu xasuusiyaa ilaa qofku ka garan waayo wuxuu tukadayba. salaadu waa farad, eedaanku waa sunne. shaydaanku muxuu salaada uga baxsan lahayahay oo sunnaha uga baxsanayaa? lianna aadaanku waa dacwad, salaaduna waa cibaado weeyaan. ifham almasala, walaalkayga muslimka u faham. ta keliyaad ku badbaadayso ee ku nabadgelaysa adiga iyo mujtamacaaguba waa dacwad weeyaan. cumar ma mara buu nebigu yidhi tog, shaydaanna toga kaluu ka sii wacdaa, lianna cumar saaxibulxaq buu haa, saaxibulxaq. shaydaanku kama cabsoonaya cibaadada iyo salaade, shaydaanku waxau ka cabsoonaya waa aadaanka. allahuma rabba hadihi dacwati taama, lianna aadaanku waa dacwad dhammaystiran weeyaan. sidaa darteed haddaan doonayna inaan badbaadno, falamaa nasuu maa dukiruu bihi anjayna aladiina yanhawna can isuu. dacwadda maxaa kaloo lagu helayaa? fasaadka dhacaya, cuquubada imanaysa ninka daaciga ee diinta ka shaqeeya way u badbaadaya. imaam bukhaari kitaabkiisa wuxuu ku soo saaray nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa yidhi qaryad baa ilaahay u soo diray malag, soo halaag baa laga yidhi qaryaddaas soo halaag. malagii markuu yimiday wuxuu arkay nin saalix oo caabida oo ilaahay si fiican cilaaqa ula leh. markaasuu yaa rabbi yidhi qaryaddan aad igu tiri soo halaag, addoon saalix oo caabida ku jiray waa sidii. ilaahay wuxuu yidhi fabda' bihi, cadaabka xaggiisa ka bilaab. lam yatacamar wajhu saacatan fiya. dadka aniga caasinaya keyrkii caabudaya ee macsiyadda dhex dabaalanaya hal mar keliya wejigiisu kama doorsoominoo kama murugoone, cuquubadii cadaabka xaggiisa ka bilaab baa la yidhi. alaa wasaluu wasaluu wasalimuu calaa man umirtum bisalaati calayh. faqad qaala allahu tabaaraka wa tacaala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله محمد وأزواجه وأصحابه وأهل بيته الطاهرين الطيبين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا مضرودا ولا محروما. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك. أمرتنا فتركنا، نهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك
يا أرحم الراحمين يا عزيز في ملكه ويا حكيم في صنعه ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فترك لنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا فإن لكل أم يتبعها ولدها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق التمرة ومن لم يجد فبكلمة طيبة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطاع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إلهي تبارك وتعالى ومنعم isagaa inoo nicmeeyey
nicmadaha ilaahay nagu galladaystayna lama tirin karaayo, lamana soo koobi karaayo. hase ahaatee nicmadaha ilaahay uu bini aadanka siiyo laba nicmadood bay u kala baxaan, nicmad yar iyo nicmad weyn. nicmadda yar bini aadanka oo dhan bay maaragtaanay ka dhaxaysaa, nicmadda weynina dad gaara ayay khaas u tahay. nicmadda yar muslimkuna uu haysan karaa, kaan muslimka ahayna uu haysan karaa. waxaa ka mid a awalan ilaahay wuxuu ina siiyey nicmatul iijaad, ilaahay isagayna jirsiiyey. maan joogi jirin adduunyadan, ilaahay isagayna jirsiiyey. hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shay-an madkuura. zaman iyo waqti ayaa caalamkan soo maray oo bini aadankan wax la sheegaba uusan ahayn. mid kastoo halkaa fadhiya haddii da-diisa la weydiiyo uu sheegi 30 jir, 40 jir, 50 jir, haluma jar intaa doontaba sheego. intaa ka hor halkeed joogaysa? lasta bishay, horay waxba umaad ahaanayn, iminkana waxba ma tihid, ee ilaahay unbaa ku jirsiiyey. iraadadiisa iyo amarka ilahayna waad ku socotaa. ilaahay bayna keenay adduunyadan, uu ina jirsiiyey, wuxuuna inaga dhigay makhluuqaadkiisa ka ugu karaamo badan buu inaga dhigay. innii jaacilun fi lardi khaliifa. markuu ilaahay nebi aadan calayhi salaam uu abuurayey, malaa'igtii buu u bishaareeyuu ku yidhi, waxaan samaynayaa khaliifkaygii baan samaysanayaa. khaliif maxay khaliif maxay ka dhigan tahay? arlada ku awaamirtayda ku fuliya, arlada ku aniga wakiiliga noqda, oo mashacayga iyo waxaan doonaya yeela, oo aniga i garto, aniga i adeeca, oo awaamirtayda arlada ku camira ayaan abuuraya baa ilaahay yidhi. malaa'igtu waxay yidhahdeen, ma waxaad ka yeelaysaa ku arlada ku dul fasaada oo dhiigga daadiya? haddaad tasbiix iyo taxmiid iyo tahliil iyo cibaado doonaysana annakaa ku caabudayno nuuraaniyiinoo ku caasinayne. ilaahay wuxuu ku jawaabuu yidhi, innii aclamu maa laa taclamuun. waxaan ogahay waxaanad idinku ogeyn ayaan ogahay baa ilaahay yidhi. marka bashar buu ilaahay naga dhigay. walaqad karamnaa bani aadama baa ilaahay yidhi, bani aadanka waan karaamaynay. waxamalnaahum fi lbari waalbaxri, bariga iyo baddaba waan xambaarsiinay. warasaqnaahum min aldayibaat, arsaaqada ta ugu wanaagsanna waan ku arsaaqnay. wafadalnaahum calaa kaiirin miman khalaqnaa tafdiila, khalqi fara badan oo sameeyena insaankan aan ka karaameeyey baa ilaahay yidhi. marka nicmatu linsaaniya waa nicmad weeyaan, laakiin nicmadda muslimiinta keliya gaar uma bal ka kale aan muslimka ahaynba nicmadda uu la wadaagaa. waa bashar, ka majuusiga cadaada caabudaya iyo ka dabka caabudaya iyo ka wuxuu samaystay caabudaya iyo kaa muslimka ilaahay caabudayaba nicmaddaas waa ay u dhaxaysaayo dadkao dhan waa bani aadam weeyaan. nicmadda yar waxaa kaloo ka mid a baa la yidhi, arsaaqaddu waa nicmad weeyaan. arsaaqadan ilaahay muslimiinta gaar uma siiye, bal kuwa kalena arsaaqadda uu siiyaa. cabdii laka calaya risqaka waliya calayka fariidatun in khaalaftanii fii fariidatii lam ukhaalifuka fii risqika. addoonkaygiiyo baa ilaahay yidhi, adigana waajibaad iyo awaamir iyo axkaam baan ku saaray, aniguna arsaaqadaadii baan ballan qaaday inaan ku siinaayo. haddiid faraa'id iyo waajibaadkii aan ku saaray aad ka tegtana anu arsaaqada kaa goosan maayo baa ilaahay yidhi. arsaaqadu waa nicmad weeyaan, laakiin waa nicmad caama, dadkao dhan bay ka dhaxaysaa. nebi ibraahim calayhi salaam martiqaadku aad u jeclaa, keligii cunto ma cunayn ilaa marti uu la raadsada maahine. nin martiya ayaa u yimiday, markaasuu neef u qalay, cuntadiibuu u dhigay. markuu ninkii cuntadii u fadhiistay ayaa ninkii halkaa wuxuu ku sitaa sanab uu isagu samaystay. khashab uu caabudayu halkaa ku sitaa, marka khashabkii baa ka soo dhacay. ibraahim calayhi salaam uu ka cadhooday, wuxuu yidhi soco buu yidhi, kuma siinaya cuntadayde, liannaka hayrullahi baad caabuddaa. uu ka socday ninkii, jibriil baa u yimida calayhi salaam, yaa ibraahim, ilaahay uu kusoo salaamaya, wuxuuna kaa yidhi addoonkaa maxaad u eridood cuntada u siin weyday? markaasuu yidhi, yaa rabbi, ibraahim calayhi salaam waxaa lagu yaqaanay daa'iman caqiidada iyo tawxiidkiisu cajiib u ahaa. uffin lakum walimaa tacbuduuna buu yidhi, ininkii waxaad caabudaysaanba uf baan niri buu yidhi. wuxuu yidhi ninkaasi ilaahay keyrkii buu caabudaya, hoosta ku haystay. yaa jibriil, ilaahay baa yaa jibriil, ku dheh khaliilkayga, ma maalin keliyuu ku yimidaad cunto siini weydee
70 sano sanabkaa uu samaystay caabudaan weliba ku arsaaqaa baa ilaahay yidhi. rasaaq waa ilaahay, arsaaqadu waa nicmad weeyaan. nicmadaasi gaal iyo islaamba waa u siman tahay. bashar caqligu waa nicmad weeyaan, caqliga dadka kaleba way kula wadaagaan. maqalku waa nicmad weeyaan, nicmada maqalka dadkao dhan baa kula wadaaga. araggu waa nicmad weeyaan. akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay'a wajacala lakum alsamca walabsaara walafida lacalakum tashkuruun qaliilan maa tashkuruun. hooyooyinkiin ayuu niga soo saaray uurkooga ilaahay ininkoo waxba garanayn, markaasuu maqal ini yeelay, arag buu ini siiyey, qalbi buu ina siiyey, bashar buu inaga dhigay. nicmadaasina waa nicmad cumuumiya, nicmadaas dadkao dhan bay ka dhaxaysaa. mancim waa ilaahay. wamaa asbaxa minkum min nicmatin fa min allah wamaa bikum min nicmatin fa min allah. waxalii waxaa nicmadaad haysataan ee gabalku iniila dhacayo waaguna iniigu baryaayo ilaahay baa ini siiyey. koonka ilaahay baa inii sakhiray, cadceedda ilaahay baa soo saaraya, amarka ilaahay baa ku soo baxaysa, amarka ilahay baa ku dhacaysaa. dhulka aad ku socotay ilaahay baa kuu ballaadhiyey. waasamaaa banaynaaha biaydin wa innaa lamuusicuun waalarda farashnaaha fa nicma almaahiduun wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayni lacalakum tadakaruun fafiruu ila allah. samada ilaahay baa sameeyey oo ilaahay gacantiisuu samada ku sameeyey, gacantiisa. dhulka ilaahay baa farishay oo ballaadhiyey. shay kastana laba ayaan ka dhignay baa ilahay dhisa aduu antowdaan. dharaar iyo habeen, dayax iyo cadcaad, kulayl iyo qabow, abaar iyo barwaaqo, nabadgelyo iyo cabsi, nolol iyo geeri, xanuun iyo caafimaad, lab iyo dhidig, faqiir iyo hani, xanuun iyo caafimaad, faqri iyo hina, cize iyo dilla. shay walba laba ayaan ka dhignay baa ilahay dhisa u antowdaan. ee fafiruu ila allah, xagga eebbahayna u yaaca, xagga makhluuqa ha u yaacina. hayrullaahi ka yaaca oo ilaahay xaggiisa u yaaca. man khaafa shay-an haraba minhu waman khaafa allaha haraba ilayhi. ninka shay ka cabsada, shayga uu ka baxsadaa, uu ka ordaa. ninka ilaahay ka cabsadana ilaahay xaggiisa u ordaa. haddii libaax hadda aad ka cabsato waad ka baxsan. haddii ilaahay aad ka cabsato xaggeed u baxsan? xaggiisa maad u baxsan. meel kaloo loo baxsanaya ma jirto, meel kaloo laysku dhiibaya ma jirto. xaggiisa isku dhiib. taskhiir ilaahay insaankan isagaa koonka u sakhiray. sakhara lakum maa fi lardi jamiican. barigiibuu kuu sakhiray, buurihiibuu kuu sakhiray, baddiibuu kuu sakhiray, hawadiibuu kuu sakhiray, kaa'inaadka o dhan buu adiga kuu sakhiray, xoolihiibuu kuu sakhiray. wa ina lakum fi lancaami lacibrah nusqiikum mima fii butuunihi min bayni farthin wadamin labanan khaalisan saa'iqan lishaaribiin baa ilahay yidhi. wa ina lakum fi lancaam, nicmowlaydaad haysataana cibra inigu sugan baa ilaahay yidhi. nusqiikum waa niga waraabinaa mima fii butuunihi, shayga caloosheeda ay ku haysato, caanahaasoon ka soo dhex saarna baa ilaahay yidhi. dhiigiyo uusinta udhexaysaa ka soo saarnaa baa la yidhi, caano cad. taskhiir, xoolihii baa lagu sakhiray, cadcadii baa lagu sakhiray, habeenkaa lagu sakhiray, dharaartaa lagu sakhiray, biyahaa lagu sakhiray, hawadaa lagu sakhiray, arsaaqadii baa lagu sakhiray. malaa'ig baa ka shaqaynaysa arsaaqadaadoon wax kalaba ka shaqaynayn, wax kalaba ka shaqaynayn. afarta malag ee qur-aanku sheegay, jibriil calayhi salaam iyo israafiil calayhi salaam iyo mikaa'iil calayhi salaam iyo malakulmowt, afartaasiba bini aadamka unba u khidmaynayaan. labana ruuxday ku shaqo leeyihiin, labana jasadkay ku shaqo leeyihiin. laba jasadkay ku shaqo leeyihiin. jibriil calayhi salaam wuxuu keenay waxyigii ruuxda bini aadamku ay ku noolaanaysay. mikaa'iil calayhi salaam arsaaqadii roobku ku shaqo leeyahay. israafiil calayhi salaam wuxuu ku shaqo leeyahay insaankan inay ruuxdu in insaanka jasadkiisa qiyaamaha dib loo soo noolay. haddana malakulmowdna wuxuu ku shaqo leeyahay qabd alarwaax, inuu bini aadamka ruuxda ka qabto. bal insaanka sida ilahay u karaameeya u fiirso. khalaqanaa, ilaahay isagayna abuuray, isagayna jirsiiyey, isagaa ilaahay noo nicmeeyey. yaa ayuha alinsaan, waa daaci weliba ilaahay uu ku yeedhayaa, kaama hadhin welibana. inii walinsu waljinnu fii naba'in cadiimin akhluqu wayacbudu hayrii arzuq wayushkaru siwaa'i baa ilahay yidhi. anigii addoonkayga war baana dhex maray baa ilahay yidhi, war weyn baa naga dhex dhacay. akhluqu aniga abuuray baa ilaahay yidhi, wayacbudu hayrii, heyrkayna uu caabudayaa. anigaa abuuray, heyrkayna uu caabudayaa, heyrkayna uu rajaynaya, heyrkayna uu tala saaranaya,
ghayrkayna uu isku hadlaynaya ghayrkayna uu ictimaadaya arzuq wa yushkaru siwaayi aniga ayaa arsaaqa baa ilaahay ghayrkayna waa ku mahadinaya arsaaqada ayaa bixiya allah baa bixiya khayri ila cibaadi naazil wa sharruhum ilayya saacid baa ilaahay khayrkayga maalin walba uu soo degaya adoomahayga sharkoogina anigu soo fuulayaa baa ilaahay maalin walba waa taas koonkoo dhan lagu sakhiray hawadii biyihii dabayshii cadcaadii dharaartii habeenkii arsaaqadii biyihii waa lagu sakhiray acmaasha bini aadanka ka soo fulaysay ilaahay xaggiisa loo qaadayana waa acmaal ilaahay ka cadhaysiinaysa intaad ilaahay caasinaysa iyo intaad ilaahay adeecaysa iyo maa badan bal aduu isxisaabi khayrii ilaa cibaadi naazil wa sharruhum ilaya saacid khayrkaygii uu u degayaa maalin walba sharkooguna anuu soo fuulaa baa ilaahay tucradu alacmaalu yowma alithnayn walkhamiis buu nebigu yidhi maalin kastoo isniina iyo maalin kastoo khamiisa acmaasha addoomaha jirkooga ka soo baxda ayaa ilaahay loo bandhigaa buu rasuulku yidhi markay addoommadu ay ilaahay caasiyaan ilaahay jala wacala uu cadhoonaya ataxababu ilayhim binicamii wa ana alghaniyu canhum waanu nicmaynayaa baa ilaahay welibana waa isjeclaysiinayaa anigoo u baahnaynoo welibana ka kaaftoon baa ilaahay leeyahay waanu nicmaynaynaa dhinacii walba hareerahan nicmadii ka dhignay buu ilaahay yidhi umana baahnayn haddana bini aadanka anigoo u baahnayn oo waxbana ay ii qabanayn oo cibaadadoodu meel ii buuxinayn oo waxay ii qabanayaan aysan jirin hadday ii wada caabudaan waxba ima ziyaadinayaan hadday wada caasiyaan waxba igama naaqusayaan yaa cibaadii low ana awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum kaanuu calaa atqaa qalbi rajulin waaxidin minkum maa zaada dalika fii mulki shay-an baa ilahay yidhi xadiis alqudsi addoommahaygiiyow kiinii hore kiina dambe jiniya insigiin haddaad noqotaan sida kiinayniigu alla kayaa badan waxba aniga ima ziyaadinaysaan baa ilaahay leeyahay culammada qaar waxay ku fasiraan waa nebi maxamed sal alla alay wasalam sida nebi maxamed ilaahay uu uga yaabay haddaad iga wada yaabtaan baa ilaahay leeyahay waxba aniga ima ziyaadinaysaan low ana awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum kaanuu calaa afjari qalbi rajulin waaxidin minkum maa naqasa dalika min mulki shay-a haddii sida ibliis ii caasiyey ibliis baa khalqiga ugu qalbi adage ibliis siduu amarkayga u diidu u jabiyey isagoo quwaddayda garanaya haddaad amarkayga u wada diidaan ood caasadaan waxba ima ziyaadinaysaan baa ilaahay yidhi ataxababu ilayhim binicamii wa ana alghaniyu canhum waanu nicmaynayaa baa ilahay yidhi say ii jeclaadaan bas anigoo haddana ka kaaftoomo u baahnayn bini aadanka wayatabaqaduuna ilaya bilmacaasi wahum axwaju shayun ilaya macsiyad bay isku kay nacsiinayaan iyakoo wax walba aniga iga baahi badan baahida aniga ii qabaan iyo baahida biyaha baahida raxmadayda u qabaan baa ka weyn baahida arsaaqada u qabaan iyo yani baahida raxmadayda u qabaan baahida raxmadaydaa ka weyn iyakoo wax walba iga baahi badan ayay haddana macsiyaddii isku kay nacsiinayaan baa ilaahay yidhi man aqbala ilaya taa'iban naadaytuhu min baciidin marxaban bitaa'ibiin ninka ii soo jeestay ii toobadkeena ee dembiga intuu galo ka soo noqday ii soo noqda baa ilaahay yidhi meel dheer baan uga dhawaaqa waxaan idhaahdaa kuwii toobadkeena ii soo dhowaada ina allaha yabsudu yadahu billayl liyatuuba musii'u nahaar wa yabsudu yadahu binnahaar liyatuuba musii'u leyl ilaahay gacmihiisuu fidiyaa habeenkii si kuwa maalinkii dembiga ku jira uga toobad aqbalo maalinkiina ilaahay gacmihiisuu fidiyaa si kuwa habeenkii gafka ku jira ilahay uga toobad aqbalo man aqbala ilaya taa'iban naadaytuhu min baciidin marxaban bitaa'ibiin kuwa ii toobadkeena ii soo noqda meel dheer baan uga dhawaaqa waxaan idhaahdaa kuwii toobadkeena iisoo laama iisoo noqda faman adbara canii minhum caasiyan naadaytuhu min qariibin ayna tadhabu alaka rabbun hayrii kooga iyaka ka mida ee xagga macsiyadda ku talax taga ee kayrkay caabuda ee shahawaadkiisa iyo hawoodiisa raaca meel yaroo dhow baan uga soo baxnaayo waxaan ku nidhahnaa ayna tadhabu halkay tegaysaa ma rabbi anigaan ahayn baad leedahay ina badsha rabbika la shadiid ina rabbaka la bilmirsaad ma dheero kama dheero qariibun mujiib jabaabirada iyo fasaqada iyo dalamada iyo kafarada ilaahay uu ka argoostaa uu argoosanayaa maalinka qiyaamaha markay dadku soo baxaan buu rasuulku yidhi xagga dhawaaq baa ka imanaya xagga ilaahay markaasaa la odhanayaa ilaahay wuxuu odhanayaa cibaadii addoommahaygiyow min maalinkaan ini abuuray ilaad adduunyada ka imanayseen waxaad ku hadlaysaan oo dhanna waan maqlaayey waxaad samaynaysaan oo dhanna waan u jeeday waa nii aamusnaa maanta waa maalintaydii iyo aamusa waan argoosanayaa baa ilahay odhanaya ayna aladiina akaluu risqii wacabaduu hayrii
markaasuu ilaahay odhanayaa mee kuwii arsaaqadayda cunaya kheyrkayna caabudayay kuwii dollarka caabudaya dollarka salaadu ku dhaafaysa mee ilaa cibaadadu sanab keliya ma ahine may haddaad qabiilkaaga aad islaamnimada iyo qabiilkaaga agtaada ku weynaado cabdulqabiil baa tahay cabdullahi ma tihid tacisa cabdu dinaari wa dirham buu nabigu yidhi addoonka dinaarka iyo dirhamka caabudaya khasaaro hoogay buu rasuulku yidhi shahawaadkaaga haddaad caabudo cabdu shahawaad baa tahay ka qabiilkiisa u ficiltamaya islaamnimadii daaqada ka saaray ee qabiil ku bedishay kaasina waa cabdulqabiila weeyaan man badaa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu buu rasuulku yidhi ninka camalkiisu dib u dhiga maalinka qiyaamaha nasabku ka dhashay hore u dhigi maayaan buu rasuulku yidhi ha u ficiltami reetolka waxba kuu tari maayaan ifkanay wax kuu tarayn aakhira waxba kuu tarayaan ifkanay naafici weyda qabyaaladii oo ummadeenni iyo dalkeennii baabiise ma aakhiray wax kuu tari markaas xamiyadda iyo jaahilinimadan iska saarno man bada'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu ninka camalkiisu dib u dhigu la hadho nasabkiisu hore u dhigi maayaan buu rasuulku yidhi sala allahu alay wasalam nabiga nin baa u yimid oo yidhi ninka xamiyad u dagaalamaya iyo ninka u dagaalamaya buu yidhi shujaacad raganimo iyo geesinimo iyo ninka qabyaalad u dagaalamaya iyo maa fii sabiili illaahi ah jawaamiculxikam baa la siiya rasuulka xikmad buu ku jawaabo wuxuu yidhi ninka u dagaalama iclaa kalimat illaah kaun baa la dartiya buu rasuulku yidhi kuwa kale waa dabayl waa dambas ay dabayl qaaday weeyaan waxoogu ma jiraan bay ka dhigan tahay marka ilaahay ninka u baahan ayna aladiina cabaduu hayrii ayna aladiina akaluu risqii wacabaduu hayrii buu ilahay odhanaya aawaya kuwii arsaaqadayda cunayay kheyrkiina caabudayay ayna hum arsaaqada ilaahay buu cunaayey nicmadda ilaahay buu dhex dabaalanayey ilaahayna adduunyada uu ku caasinayay bal reetolkii dartiid buu amarka ilaahay u jabinayay aaway buu ilahay odhanaya waan argoosanaya maanta anigune marka qofka hadduu macsiyadda ku talax tago ma baxsanayo walaalayaal ma baxsanayo adduunyada intuu nool yaha waa loo siita dheerayn laakiin ma dheeraanayo arrintiisu looma dheeraanayo laa mucaqiba lixukmih alaysa allahu bicasiizin dintiqaam alaysa allahu biaxkami alxaakimiin alaysa allahu biaclama bima fi suduuri alcaalamiin waa argoosan ilaahay marka cibaadadu maaha sanab keliya loo sujuudo maaha waxa li wixii amarka ilaahay ku garamariyo o dhan waad caabudday ka dhigan tahay waxa li wixii ilaahay daacaddiisa ku halmaamiya waad caabudday haddaad hawadaada raacdo hawadaada waad caabudday afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah ilaah macnaheegu waa maxay luqada carabiga ilaah waxaa la yidhi waa shayga markay dhibaata kugu timaado qulubtaada u ilato xaggiisa hada hu yusama lilaah man aqbala ilaya taa'iban naadaytuhu min baciidin marxaban bitaa'ibiin faman adbara minii canhum faman adbara canii minhum caasiyan naadaytuhu min qariibin ayna tadhabu alaka rabbun hayrii halkee tegi buu odhanayaa meel kaleo tegaysa ma jirte ilaahay waa muncim isagaa inoo nicmeeyey bashar buu inaga dhigay caqli buu ina siiyey cilmi buu ina siiyey kownkan iyo kaa'inaadku inoo sakhiray hadafku adduunyada inoo keenin ilahay uu noo caddeeyey nicmadda weyn ee gaarka ee dadka gaarka la siiyey waa nicmatu liimaani waalislaam iimaanka islaamnimadu waa nicmad weyn nicmadaasaa ilaahay muslimiinta ku deeqay nicmadaha kale ee ka soo hadaloo dhan waa nicmad wakti yar ku xadidan weeyaan laakiin nicmatu liimaani waalislaam ma xadidno bal qofka adduunyada intuu nool yahay ilaahay amarkiisa qaata ee noloshiisa diin dhammaystiran laga helo ee diintu kashkiisa iyo laabtiisa ay ka muuqato ee iimaanka islaamnimada noloshiisa laga helo adduunyadana raaxa iyo ciz iyo sharaf aakhirana waxaa u dambaysa noloshii daa'imkii abadiga ahayd adduunyaduna xaqiiqaba mahaba
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وصية الأولين والآخرين ومحي فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نبي إبراهيم عليه السلام يلاشي سوحو كيري وبدكيغيو إلهي الدين تاسو إني دورتي يينا أجاشي جيردو نيمن إلا إنكو دين تاي حريقا هايستما هنا هداي نيتي ما دا أجاشو إنكو حريقا هايستنا واللي بانتين هداي أجاشو إنيتي ما دا إنكو حريقا هايستنا خسارة waxaad ku dhacday weligaan laga soo kamayn. Khasaarada adduunyada waa laga kamaa laakiin khasaarada aakhira lagama kamo. dalbay dhibaato ka dhacday waa laga soo baxay. dadka badankoodu way ka baxeen. quruumo kale reer baadiya dalkii bas ka qabsaday. dadkii wax yaqaaneen mutacallimiintii waa ka soo baxeen. meeshana waa kala sigeer cascasiye baawr la iska wada wato. laakiin dhibaatada aakhira halkee looga qaxaya ma jirto meel loo soconayo. haddii la yidhaha hebel qiyaamaha uu khasaaro wuxuu ku dhacay uu weligii ka soo kacayn. qur-aankuna aad buu uga warramay maalinka qiyaamaha yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-an walamru yowmaidin lilah yowma tabyadu wujuuhun wataswadu wujuuh yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiih yowmaidin يود الذين كفروا يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي يومئذ ببنيه فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا إلهي بالله فكيف لا تتقون ميانا عبسنين با إلهي ليه سيندو عبسنين هذا خالقين إنكرتان ونعمدو النسياء هذا إنكرتان ودهوديني شهوات كنا أذرعدان ميانا كعبسنين وقيران مالين ilmaha yar markuu banka qiyaamo la joojiyo timihiisa isla markiiba cadaan isku bedeli doonaan. yawma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuh waa maalin wajiyada qaarna ay iftiimayaan baa ilaahay qaarna wajiyadu ay madoobaanayaan. yawma yafiru almaru min akhiihi waa maalinta qofku hooyadii walaalkii ubadkii xaaskii ay kala baxsan doonaan. maanta waa la isku yaacayaa adduunyada waa la isku yaacayaa. hadday dhibaato timaado dadku dhibaatada maanta waa iska kaalmaysanayaan. nin walba kii halkan jooga dadkiisii waxbuu u dirayaa laakiin qiyaamaha cidna cid wax u diri mayso. hooyadaadii macaaneyd ee ku dhashay haddii la yidhaahdo miisaanka ayaa lagu hayaayo hal xasana ayaa ka dhiman ee si hadday xasanaysa jannay galaysaa qof kasta wuxuu leeyahay maalintaa may ilaa naftayda jannahan ku hubsanaya cid ma aqaana buu leeyahay. yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-a walamru yowmaidin lilah yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim. yowma laa yajzi waalidun can waladihi waa maalinta waalidku ilmihiisa wax u qaban karayn cunuguna aabihi waxba u qaban karayn. qur-aanku maalinta aad buu uga warramay laakiin ayaa maanta kuwaan toobaya iyaase waru hayaba warkana ayuuba saameeyeyba maanta ayuu saameeyey. xasan albasri ayaa raabica ayuu ku yidhi maad guursatida waxay tidhi imaam xasanow waxay tidhi afar aayadood oo qur-aanka afar mas'aladood oo qur-aanka ku taalla ayaa walwalkii ayaa raaxadii iyo hamigii ka qaada bay tidhi. waxay tidhi qur-aanku waxa uu noo sheegay in maalinka qiyaamaha dadku ay laba u kala baxa inay dadku laba u kala qaybsamayaan. qolana kitaabka midigtay ka qaadan qolana bidixday ka qaadan labadan qoloqoladan ku jira iyo caddayn bay tidhi. qur-aanku waxa uu noo sheegay miisaanka in acmaasha la saaraayo qofka khayrkiisa cuslaadana janno inuu ku waariyaayo qofka sharkiisa cuslaadana naarta inuu ku hoyanaayo labadaa midaan ku jira ay kala caddayn bay tidhi. jidka siraadin la marayo qur-aanku ii sheegay dadna ay ku hoobanayaan jahannama dadna naarta u gudbayaan labadaa qoladaa ka mid aha ay caddayn bay tidhi. fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir baa la yidhe fariiqaan ku jira ayaa caddayn bay tidhi. waa raabica humuum qofka meel u caddahay meeli ka madow. dadka zamankan adduunyadana la weyn dadkii qalbigooga iftiinku galayna aakhirada la weynaatay. aakhiradii markay weyneeyeenna noloshii adduunyada waa u dhib yaraatay. raaxadii adduunyada waa ifka u soo baxday. maxay tahay adduunyadu cish maa shi'ta fa inaka mayit. jibriil baa u yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ku yidhi intaad doontaba noolow kii dhinta un baatee qorshaa ku darso. wacmal maa shi'ta fa inaka majziyun bihi
camalkaa doontana la imo waa laga abaalmarin doonaa qiyaamahiisa ogow waxbin man shiita fa inaka mufaariquhu ciddaad doontana jeclow adiga iyo ciddaad isjeceshahayna mawdkani kala geyn doone caalamkana ku nool lahay marka loo eego cawaalimta ka dambaysa caalamkan adduunyadu wuxuu noqonayaa dhibic marka loo eego cawaalimta dambaysa caalamu dunya waa 60 sano 70 sano caalamul barzakh ayaa ka badan caalamka adduunyada dadkii zamankii nebi aadan dhintay ilaa joogadeenna caalamkaasay ku jiraan qolana way ku cadaaban tahay qolana way ku raaxaysanaysaa waa loogu janneeyey alqabru ima rawdatu min riyaadi aljanna wa ima xufratu min xufari naar buu nebigu yidhi qabrigu laba mid buu noqonayaa ama beerbeeraha jannada ka miduu qofka u noqonayaa ama godgodadka naarta ka miduu u noqonaya sayidina cusmaan radia allahu canhu mar alle markuu qubuuraha yimaada ilmadaa ka daadanaysay waxaa la yidhi cusmaanow janniya naar marka laga sheekay ma oydide qabriga maxaad la oydaa markaad aragto wuxuu yidhi qabrigu waxaan ka maqlay nebiga oo leh calayhi salaatu wasalaam qabrigu waa guriga guryaha aakhiro ugu horeeya hadduu qofku halkaa ku nabad galo nabadgelyo ayaa u dambaysa hadduu halkaa ku cadaabo ku khasaarana khasaarihii weynaabuu u gudbayaa buu yidhi zuraarata ibn abi awfa masaajid buu ka ahaa imaam taabici buu ahaa salaadii subax buu jamcii tujiyey rakacaddii hore markuu suuraddii faatixada u dhameeyey suuratu lmudathir buu ku xijisiiyey markuu marayo faidaa nuqira fi nnaaquur fadalika yowmaydin yowmun casiir cala alkaafiriina hayru yasiir maalinta suurta aan ku dhifanna baa ilaahay yidhi waa maalin culus weeyaan maalintaa dadka gaaladaana uma fududo baa ilaahay yidhi aayaddaa markuu marayay ninka imaamka taabiciga jaliilka uu dhacay oo nafti baa ka baxday sayidina cumar masaajidkii nebigu soo galay habeen inan yaroo shaab buu arkay oo salaatuleyl tukanaya oo soodka kor u qaadaya markaasuu cumar istaago uu dhegaystay yarkii yaraa markuu faatixadii dhameeyey wuxuu ku xijisiiyey watuur wa kitaabin mastuur fii raqin uu dhegaystay cumar markuu maraya yarkii yaraa ina cadaaba rabbika lawaaqic maa lahu min daafic halkaa markuu maray cumar uu suuxo uu dhacay gurigiisii baa la geeyey 30 maalmood buu xanuunsanaa xanuunkiisana wuxuu ku yimid lama ogeyn sayidina cabdiraxmaan bin cawf ayaa loo keenay cunto isagoo sooman markaasuu qur-aankiibuu kala furay waa qabla alfutuur weeyaan qur-aankiibuu kala furay markaasuu akhriyey ina ladayna ankaalan wa jaxiiman wa طacaaman daa gusatin wa cadaaban aliima طacaamka ahlu naarka aayaddu ka warramaysaa aayaddaa markuu taabtay sayidina cabdiraxmaan uu ooyey ilaa maalintaa waa furi kari waayey sidiibuu ku seexda habeenkii gaajo nebiga calayhi salaatu wasalaam xalaqaadkiisii ka mida ayuu nebigu sal alla alay slam ku akhriyay aayaddaas waxyigiibaa ku soo degay isla markiiba asxaabtu waxyiga u gudbiyey yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara kuwii ilaahay nebiga rumeeyow duulkii ilaahay nebiga rumeeyow lafihiinni iyo ehelkiina naarta kala baxsada baa ilaahay yidhi ee gaajo kala baxsada lama odhan gaajaa laga soo yaacay dhibaato keliya laga soo yaacay 10 dhibaataa maanta faraha lala galoo la laami kari layahay quu anfusakum waahliikum naara mufasiriintu waxay ku fasireen lafihiinana diinta barta ubadkiina iyo ehelkiinana diinta bara baa ilaahay yidhi waxaa yeele diintaa lagaga badbaadayaa naarta aayaddaa markay soo degtay waquuduha annaasu walxijaara markuu nebigu aayaddaa ku akhriyey nin xabashiya nebiga hor fadhiyey majliskiisa lilma ayuu sii daadiyey uu ooyey oohintiisiibuu ishaysan kari waayey ilaa jibriil ka soo degay calayhi salaam yaa muxamed kan hoostaada ku ooyaya waayo markaasuu yidhi yaa jibriil waa adoon reer xabashaa oo ahlulkhayr oo mu'mina aayaddaasaan ku akhriyo uu adkaysan kari waayey buu yidhi markaasuu yidhi yaa jibriil yaa muxamed ilaahay wuxuu yidhi wacizatii wajalaalii wairtifaacii fowqa carshii laa tabkii caynu cabdin fi dunya min makhaafatii ilaa akhartu daxikaha fi ljanna ilaahay baa leh sharaftayda weynidayda carshigayga sare ayaan ku dhaartee addoommahayga ka mida adduunyada dusheeda ma ooyo cabsadayda lama ooyo haddii la helose maalinka la qatan yahay la qaawan yahay qiyaamaha ayaan qosolkiisa badiyaabaa ilaahay yidhi 60 sano ayuu ku dhammaysanayaa taacadda ilaahay iyo cabsidiisii iyo khawf iyo khashyad iyo bukaa abaalgudkiisa wuxuu noqonayaa maalinka la qatan yahay la qaawan yahay ayuu carshiga hoostiida kursi loo dhigaya uu qoslaya allah inaga dhiga kuwaas fa dadkii hore
qulubtoodu markuu iftiinku gale nuur aliimaan iyo nuur alcilmi iyo nuur alqur'aan iyo nuur alhidaaya markay afartaa nuur qalbigooga uu saameeyey aakhiradii baa u caddaatay qur-aankay fahmeen waxyigii bay fahmeen cumar iyo abubakar markuu nebigu intiqaalay calayhi salaatu wasalaam ayay yidhaahdeen abubakar baa ku yidhi cumarow ummu ayman inooge hambuuqane sidii nebiguba u ziyaaranaya hanu ziyaaranay inooge markaasuu wayse soo raaceen ummu ayman bay u yimaadeen markaasuu mar alliya markay aragtay abubakar iyo cumar oo wada socda ummu ayman way lilmaysay markaasuu abubakar baa ku yidhi yaa ummu ayman miyaanad ogeyn nebiga ilaahay agtii inay u khayr badan tahay ma nebiga baad nagu xasuusanaysaa macnuhu weeyaane waxay tidhi waan ogahay nebi maxamed alla agtii inay u khayr badan tahay waan ogahay waxaan la ooyay geeridiisa kama ooyine warkii samada nooga imanaya baa naga go-ay bay tidhi cajiib bal ummaddu siday qur-aanka ugu xidhneed u fiirso dhegayso oo faham gabadha walaasheeda muslimaday zamanka dadku siday qur-aanka ugu xidhnaayeen eeg rag iyo dumar maantana maxaa lagu xidhan yahay maanta iimaanku waa maxay takdiibun binnadar wa tasdiiqun bilkhabar waxay naf isho arkayso dhan beene wax samada ka yimid ee warana rumee hada huwa aliimaan qur-aanka iyo xadiiska rumee warkoogana qaado wixii labadaa ka baxsanna ha yeelin maxaa yeelay waa been waxba kama soconayaan labadaasunbaa dhaba labadaa warkooga inaad qaadatana farad bay kugu tahay dadkii markay warkaa qaateen adduunkan iyo aakhiro way ku liibaaneen marka nolosha adduunyadu maxay tahay ba walaalayaal maxaa la iskugu daalinba qadra daruura adduunyada ka isticmaal ha dhex degin guri bilaa musqula ma dhici karto laakiin musqusha la dhex seexan maayo markay xaaja ku qabato unbaad gali waad ka soo bixi haddii uu yidhahdo qofku ka warrama intuu firaashkii qaato yidhaha musqushaan dhex seexanaya maxaa la odhanayaa majnuun adduunyadu waa caynka haddii uu yidhahdo qofku tanun baan aqaanaa tii dambe ma aqaana qorshahayga way ka baxday tanun baan aqaanaa hadduu yidhahdo waa majnuun uu waalan yahay qofkaas in la dabiibuu u baahan yahay adduunyada isticmaal lama diidano laakiin sideed u isticmaalaysaa sida ninka guriga le musqusha uu isticmaalo adduunyada u isticmaal qadra daruura adduunyada ka qaado qadra daruura meeshaad u socoto waa aakhiro weeyaan hayloobin ha halmaamin arsaaqada kasbiguna inuu ku dhaafin daacadda ilaahay arsaaqadii kasbigaagu inuu ku seejin الرزق بقدر المقدر باليدي أرزاقده وأنت إلهي كو قدرين ويان واحد زيادة ما هليس أرزاقده وأنت إلهي كو قدرين عالم كان وعالم ير مرك الله يقع عالم كقبرك عالم كقبرك مرك الله يقع عالم كقيامها ويرانا يا عالم كقيامها مرك الله يقع عالم الجنة والنار عالم كسنة ويرانا يسنه لكن محل لقوا بدادية وحل لقوا بدادية هل كان لقى قادنيا ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاحفظ لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا إلهي نسائر وحيري إن آدنوا ما لنتي أدويدا دمنيسي ما لنتي أدويدا إيمانيسي وحيه إذا كنا الشيء أدو أويا دتكن أكتا لا يفرح سيهين عنو قبركو دلنا يو بقاق وقيلي يسقو لكن دتكو يفرح سيهين فاحفظ لنفسك نفت هذا انت نوشه إلاليو أمرك إلهي كو إلاليو دينت إلهي إلى السؤو إيمانك إلى السؤو سلان نمد إلى السؤو أمرك إلهي حسيدين سمال انت دمان يسو هذا دويد وقتك تهدقو فرحسن دتكو أكتا هذا يكو أويان دتكو والله وضع ننا دويد وحكتك يسقو فرحسن ننا ومستريح ننا ومستراح nin waa nin adduunyadii looga raaxeeyey oo daartii aakhirada raaxadii baa loo qaaday nina dhimashadiisa markuu dhinto dadkii baa ka raaxaysanaya hebel ma dhintay haa qaar baa odhanaya baguu dhintay kaasi fitnaawi buu ahaay baguu dhintay nina waa nin mustaraaxa adduunyadii baa looga raaxeeyo
caalamu tacab baa laga qaaday caalamu raaxa ayaa la geeyey caalamkii wixii bini aadamku u baahnaa lagu dhammaystiray baa loo qaaday maxaa yeelay adduunyada nolosheedu ma dhammaystirno haddaad shabaab tahay berri waad gaboobi haddaad maanta caafimaad qabto berri waad bukooni haddaad maanta qani tahay berri waad faqiiroobi haddaad maanta murugsan tahay haddaad maanta faraxsan tahay berri waad murugooni haddaad maanta shabaab tahayna berri waad gaboobi haddaad maanta nooshahayna berri waa dhiman adduunyadu ma dhammaystirmayso low kaana liibni aadama waadiya min dahab axaba an yakuuna lahu waadiyaan ini aadan haddii la siiyo tog dahab oo socda buu nebigu yidhi ku labaad buu jeclaan buu yidhi haddii ku labaad la siiyana ku saddexaad buu jeclaan buu yidhi ini aadan afkiisa wax kale ma buuxiyaane qabriga marka la geliya ciidda lagu guro unbuu dhargaa buu rasuulku yidhi adduunyada lagama dhargo ma dhargaysid maxaa yeele laguma talagelinba shahawaad waxay bini aadamku u baahan yahay adduunyada laguma dhammaystirin daar baa jirta lagu dhammaystira waxay naftu u baahan tahay hadda subaxdii bal u fiirso magaalada dhowtonka meelahan aad tirahdaan centerfield baan idhaa anaku wasta almadiina waddada hanweyga ee u socota magaalada bartamaheega ayaa subaxdii maaragtaane rashawar oo zaxmada haddaad tiraa dadka halkee tegaysaan waxay ku dhahayaan waan shaqo tegaynaa galabtiina waddada kale ayaa zaxmada oo cidhiidhiya haddaad tiraa halkee tegaysaan wuxuu ku leeyahay waan raaxo tegaya gurigaygii baan tegayaa reerkaygii iyo oradaydii baan u tegayaa meesha shaqaduna waa meel gooniya meesha raaxaduna waa meel gooniya adduunyadani meeshii lagu raaxaysanaya ma aha halkan shaqaa loo yimiday meesha raaxadu waa loo noqon doonaa إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد بأن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا تصحوا لا تسقموا أبدا تنعموا لا تبأسوا أبدا تشبوا لا تهرموا أبدا أهل الجنة برسولك يري مركي الجنة قلان أفر شيء بالله بشارين يا وعلى رنا أهل الجنة ما أنت لقى بلعب واحد ليده النلل أدي مشد بلهين شباب نمو أن قبوا دم بلهين نعمد أن دبات دم بلهين عافمات أن حنون دم بلهين بالله يا أين الدنيا حديث النبي كشيكي ابن مسعود وريي يا أذنى أهل الجنة منزلا جنة دسك قليا كوجود درجير بالنبي مالك كشيكي حيوري وانن كسو بحيا جنة بالنبي يقول جنة كسو بحيا غرغورة بوك كسو بحيا الباب كي جنة إلهي بهر إيمانيا إلهي بأورنا يا عبدي أدون كيجيو أرض جنة قلوة تاسع الباب كي جنة إيمانيا إني يسيبها لو قد يا جنة إني بحسنتي مركز نقولنا يا رب جنة تك قل يقول تري وين بحدا مالن كده ما هيست مركز ولا أورنا يا ما بحدا أرض نقول قل هذا أو إيمانا يا مر لبعض مر صدحات مركز أفراد إلهي أورنا يا أرض جنة قل أو تك أو قل جنة الدنيا دي يتوبن كيد بالله ده كيلي قاسي الدنيا دي أي مسا توبن كيد وصاحد أرلد ويان أما واحد جنة يا لا الدنيا ما يالين ما يالين الدنيا محا يالا مركاسو أورنا يا أتسخر بي إله ما يقول دال إسا أو تضحك بي مسواد يقول قصل صادق أبو بكر كيه مسكح دي سي كده هذا عين رنتاس الدنيا دي يتوبن كيد بالقصية سعو إمام قرطبي كتابه التذكرة وحو كل شيء نكاسي مدحوينا مركز الدولة لو مقعابو كورمير بو سميا دل كورنم بو صومرا قبل دا تولوينكا دستريجيدا ميلكسو صومرا وزارة لها نكاسي وحوري هل كانوا كبلابا يا جنديسي هل كانوا كبلابا يا إلا دنا عكلا وكسو وريغيو ماشو مرنا مر لبادش كو قوان مايه سفر كاوحو كقادنا يا كون سنة إمسا سنو كون سنة فياتي وحو إيمانيا الباب كي جنة ويسسوت هاقيا حور العين تسيبا كور إيمانيسا تنظر إليه وينظر إليها ابن عباس ويأجي وأجي أجمدو كلي هيا قادنا يسيبو دافرت السنة إمسا سنة دلك جوكتان النظر فقط تعانقه ويعانقها وكب بوديا ويكسو بوديسا ويسكو دقيان والمعانقة قدر 40 سنة ابن عبد الله بن عباس معانقة وكلية وحي سيساني أنا فرت السنة وكلي وصعنا يا مخسيكي عنتدو عيت هلاي بفريسنا يا تضبب بقول سنو عنتدو عنا يا بس مدة أوير عنتدو عنا وتضبب بقول سنو أين الدنيا عيتها يا ديدو
xuralcaynta waan ka sheekayn lahayna kolley haweenkuna waa nala fadhiyaan bayaanka waa nala dhegaysanaya muxaadarada xaqoogana waan sheegaynaa cajiib nicmadaasaa ilaahay dadka mu'miniinta u diyaariyey yatuufu calayhi 10,000 khaadim buu nebigu yidhi ninka jannada galaya dadka jannada gala ugu jaga yara ugu faqiirsan ee ugu faqiir lama dhihi kare ugu jaga yar waxaa dushiisa dawaafaya buu nebigu yidhi 10,000 oo khaadim baa dul dawaafaya khaadimka kale arki maayo khaadimkan sharaabka iyo cuntada uu sida ku kale ma sido guryaha jannada buu nebigu yidhi sida guryahan adduunyada ma ahine sidaasay carshiga uga laalaadaan buu rasuulku yidhi asxaabtu way yaabeen yaa rasuulallah guryaha sideen u galaynaa wuxuu yidhi sida shimbirahaad u duulaysaan ad u galaysaan buu yidhi cuntaada cunaysaan biyahaad cabbaysaan sindha iyo kaadimidna noqoni maayaan cuntadu waxay isku bedelaysaa daacadaasoo ka udgoon miskiga sharaabku wuxuu isku bedelayaa dhididkaasoo isaguna miskiga ka udgoon ma dhimanayaan ma gaboobayaan ma daalayaan ma gaajoonayaan ma haraadayaan ma bukoonayaan calolxuma ma jirto qabyaalad ma jirto qabyaalad halkaa may socon ma jirayso wanasacnaa ma fii suduurihim min khillin albaabka jannada markay joogaan laba shayba waa laga dahirayaa hadday jirhkoogiina jannada intay gelin baa la bedelayaa laabtooda wixii ku jiray khilli iyo xasad iyo dabeecaddii xunayd iyo buqdigii iyo wixiina halkaasaa lagaga reebaya laa yasmacuuna fiiha lagwan ilaa salaama wax kala maqli maayaan salaama bay maqlayaan waalmalaa'ikatu yadkhuluuna calayhim min kulli baab salaamun calaykum bima sabartum nuzulan min ghafuur salaamun qawlan min rabbi raxiim dhexdoodana waa salaam malaa'igtuna way salaami xagga salaamkana salaam baa ka imanaysa salaantee ka imanaysa salaamtaa waxay ka timidaa la odhanayaa min alxayi aladi laa yamuut ila alcabdi aladi laa yamuut diinta iyo iimaanka islaamnimadu waxay bini aadanka siinaysaa sifaadka ilaahay ka mid a alabad sifat alabad buu yeelanaya qofka bini aadamku markuu jannada galo min alxayi aladi laa yamuut waxaa la odhanayaa salaantani waxay ka timiday ilaahay noolahay aan dhimanayn waxay u imatay addoonka ilaahay isaguna aan dhimanayn haddee toole nicmadaasaa ilaahay noo diyaariyey nicmaddaa waxaan ku helaynin waan haysanaa iimaankaan ku helaynaa islaamnimadaan ku helaynaa haweenkuna ilaahay waa u nicmeeyey oo nebiga ayaa yidhi calayhi salaatu wasalaam ida almar'atu ayima imra'atin maatat wa zawjuha canha raadin dakhalat iljanna raggu baa la yidhi waxyaabaha jannada ragga loogu ballan qaaday waaba la adkeeye laakiin dumarku waxyaabaha jannada ku galeen waaba wax iska dhib yar naagta gabadha dhimata buu nebigu yidhi haweeneyda dhimata iyaduu ninkaygu raadi ka yahay jannaday gashay buu rasuulku yidhi rasuulku xadiis waxau ku yidhi dadka salaada tukada albaab bay jannada ku leeyihiin layidhaa baabu salaa dadka soonka laazima albaab bay ku leeyihiin baabu rayaan layidhaa dadka sadaqada bixiya albaab bay ku leeyihiin baabu sadaqa layidhaa dadka jihaadka u dadaala albaab bay ku leeyihiin baabuljihaad layidhaa abubakar baa yidhi biabi anta wa ummi yaa rasuul allah hooyaday aabbayba waan kugu fidayn oo kugu furanaye 8 albaabay jannadu leedahay nin ka galayoo looga yeedhaya ma jiraa buu yidhi markaasuu nebigu uhi nacam wa arjuu an takuuna minhum haa way jiraan rag 8 albaabee jannadaba looga yeedhayo la odhanayo kan ka soo gal way jiraan raggaa inaad ka mid tahay baan rajayn buu rasulku yidhi abubakarow abubakar keliya ka gali maayo 8 albaabee waxaa la galaysa gabadha saalixadda ida almar'atu sallad khamsahaa wa saamat shahrahaa wa ataacat zawjahaa wa xafidat farjahaa hadday haweenaydu buu nebigu yidhi 5 waqtina tukato bisha rabadaanna ay soonto farjigeegana xumaanta ka dhowrsato ninkaygana ay adeecdo 8 albaabee jannadu ay leedahay ayay kay doonta ka gashaa buu rasuulku yidhi 8 albaabee jannadu leedahay ayay kay doonta ka gashaa buu rasuulku yidhi hadday gabadha laga hela 4 camal bisha rabadaan oy soonto 5 waqti oo ilaaliso xumaantoo ka dhowrsoonaato iyo zawjkeega oy adeecdo 4 gabadha laga hela buu rasuulku yidhi 8 albaabee jannadu ay leedahay ayay abubakar daba joogsanee la geli doontaa qiyaamaha waa la weydiiyey nebiga gabadhu way weydiiyeen saxaabiyaadku haweenka muuminaadka iyo xuralcaynta midkee fadli badan baa lagu yidhi caaishaa weydiisay wuxuu nebigu yidhi gabadha muuminadda ayaa xuralcaynta ka fadli badan buu yidhi waxay tihi maxaan kaga fadli badannay waaba xuralcayn oo ilaahay baa sameeyo nuur baa laga sameeye
wuxuu nebigu yidhi bisalaatihinna wa siyaamihinna wa taacatu aswaajihinna waxay kaga fadli bateen xuralcayntu haweenka muuminaadku xuralcaynta waxay kaga fadli bateen soonka ay soomayaan salaada ay tukanayaan iyo raggooga ay adeecayaan. fadligiina iyo masabkiina diinta islaamku meel sarayni dhigtay. nin baa nebiga u yimid oo yidhi dadkayga qaraabadayda ayaa igu xaq mutaystay hor iyo horaanba. wuxuu nebigu yidhi hooyadaa haddana hooyadaa haddana hooyadaa haddana aabbaha buu rasuulku yidhi. dhegayso gabadhayda muslimaday, diinta islaamku hoos kumay dhigin, xaqaagiina may qarine, bal diinta islaamku xaqaagii kor bay u qaaday kor. sayidina cabdullaahi bin cumar buu nin u yimiday, lacalla hada alxadiis waa marfuuc weeyaan. cabdullaahi bin cumar buu u yimiday nin, markaasuu yidhi yaa ibnu cumar, hooyaday ii dhashay ayaan degtayda xashka ku keenay, intaasoo mayl ayaan degta ku soo qaaday, waan dawaafsiiyey, carafa ayaan geeye, xaqeygii ma guday mise ma gudin? wuxuu ku yidhi xaqeygii kugu lahaydood gudda iska daaye, maalinkii ay yaraantaada ku xambaarsanayd ee marada qaydka kugu xambaarsanayd ee qaydku ka dabacay ee u malaysay inaad ka siibatay, maalinkaa keliya naxdintii ay naxdayba abaalkaygii maad soo celin buu ka yidhi. xaqiina waad leedihiin, xaqiina diinta islaamku meel bay ku tiirisee, adiguna isku xadgudbin walaasheeda muslimaday. dhaqan baad leedahay, diin baad leedahay, islaam baad tahay, mu'minad baad tahay, waxaad ku danyataa dadkii haweenkii ilaahay adduunyadan uu raalliga kaga noqday waddadoodii maryan binta cimraan ku dayo, aasiya bintu masaaxim ku dayo, faaduma binta muxamed ku dayo, khadiija bintu khuwaylad ku dayo. dadkaasaa adduunkan iyo aakhira ku liibaanay. sida waxa uu nebigu yidhi sal alla alay wasalam, haweenka ilaahay 4 buu ka doortay buu nebigu yidhi. 4taasina waa maxay? waa maryan, waa nebi ciise hooyadii, waa aasiya weeyaan. waa aasiya guriga fircoon bay iyay deganayd, halka baydka guriga ninkaa rabbinimada sheegtay guriga dhexdiisa ilaahay ku caabuday aasiya. faadumana waa ina muxamedo tacab iyo rafaadba waa u dul qaadatay, adduunyadana way ka saay qaadatay. waa khadiijo oo qofkii u horreeyey diinta islaamka soo galay waa khadiija, qof ugu horreeyey oo diinta islaamka dhaqaalo ku bixiyana khadiija ahayd. diinta islaamku meel sarayni dhigtay. raabica ayaa la weydiiye o lagu yidhi, raabicay haweenku imaamna ma noqdaan, amiirana ma noqdaan, maxay ku dhacday? nebiyana ma noqdaan, maxay ku dhacdaan la yidhi. waxay tidhi gabadh xikmad lahaydoo 4taaba annaka unbaa dhalla bay tidhi. subxaan allah, caqligu waa cajiib. caqliga allah inoo hagaajiyo. boqoradana annaka unbaa dhalla, imaamyadana annaka unbaa dhalla, nebiyadana annaka unbaa tarbiyadanoo dhalla bay tidhi. allah ina fahamsiiyo. khayrulkalaami maa qalla wadalla. ilaahay diintaa buuna siiya islaamnimada, diintaa inaan adkaysanno oo nicmada u aragno, nicmad u aragno waa nicmade ayaa la doonayaa walaalayaal. oo dalkanaan imanay dhaqankeennii iyo diinteennii iyo akhlaaqdeennii iyo caqiidadeennii inuusan waxba ka bedelin. ittaqi llaha xayumaa kunta buu nebigu yidhi, meeshaa doontaba joogoo ilaahay ka yaab. badbaadadeenna aan ku badbaadaynana dalkan iyo meel kastan waxa weeyaan waa inakoo maaragtaanay dhammaanteen istaagna halkii nebigeennu istaagay calayhi salaatu wassalaam. ilaahay wuxuu ina siiyey dadaal, hadday muslimiintu dadaalkaa fahmaan ay u kacaan, iyakuna ay badbaadayaan, usradoodii iyo dadkoogana ay badbaadin karayaan. mu'minka dhabta ma badilmay, waxbuu badilaa, lama saameeye waxbuu saameeyaa. dhowr nin oo caraba ayaa ka tegay khilaafadii dowlatul amawiya, ardul islaam bay ka tegeen, indonesia iyo malaysia u tegeen tijaara iyo business calaa manhaj alislaam bay ku tijaaraysanayeen. akhlaaqdoodii iyo dhaqankoogii baa lagu islaamay. akhlaaqdoodii iyo dhaqankoogii 8 kun buu ka diray cumar ka diray maaragtaanay madiina, masar buu u diray. 8 kun baa dalkii oo dhan badishay. mu'minku markuu u socdo hadafkiisu markuu yahay iclaa kalimati illaah, ixyaa addiin fi lcaalam, nashr nicma. mu'minku markuu ka dhiga hadafkiisa inuu islaamnimadan qaado caalamka gaadhsiiyo, inuu nicmadan ummadda ugu yeedho, inuu diintan caalamka uu meel walba u maro, hadafkaa markuu muslimku hadaf ka dhigto uu u safro, uu dhaqaalo u bixiyo, u dhaxo, u dhoofo, ma badilmaya, isagaa wax badilaya. lama saamaynaya, isagaa wax saamaynaya. ta keliya aan ku badbaadayna waa maxay? ee xifaadadeennu ay ku jirtaa waa inakoo ilaahay diinkiisa ka shaqayna. rag iyo dumar, ummaddan
wuxuu kaga tegay nebigu calayhi salaatu wasalaam manhajka uu kaga tegay waa maxay 3 shay zamankii nebiga ummaddu way wada lahayd cilmi iyo camal iyo dacwa 3daa zamankii nebiga ummaddu way wada lahayd nin kastoo saxaabiya gabarh kastoo saxaabiyada waxay ahaayeen caaliman bidiinihim diintooda way yaqaaneen caamilan bidiinihim diintoodana way ku camal falayeen daaciyan ilaa diinihim diintoodana ummadda way ugu baaqayeen alcilmi walcamal waddacwa 3daas waxay ka soo baxeen manbacii masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam kuma tegin nebigu ummad maaragtaane adduunya ku hamoonaysa kagama tegin caalamkee wuxuu kaga tegay ummad aakhiradu ay la weyn tahay oo diintu ay la weyn tahay oo iimaanku uu la weyn yahay oo islaamnimadu ay la weyn tahay cuqba binu naafic madiinu ka dhaqaaqay masar buu yimiday libiya ayuu yimiday muxiit alatlas maqrib intuu istaagay zamankan waaga zamanka dalkanaa joogno lama aqoonin faraskii intuu badda geliyey buu yidhi yaa rabbi low calimtu waraa hada albaxri unaasun laballaqtu calayhim laa ilaaha ila allah yaa rabbi haddaan ogahay baddaa dad inay ka shisheeyaan laa ilaaha ila allah baan gaadhsiin lahaa buu yidhi alaan arjac ila almadiina haddaan ku noqonayaa dalkaygii madiina maxaan u noqonayaa lianna alarda intahat lianna dhulkii baa dhammaaday buu yidhi haddeetoole uu celiyey faraskii jazaa'ir buu markaa ku dhintay halkaasaa lagu aasay madiinuu ku barbaaray cukaasha radia allahu canhu ree madiina ayuuhaa waxau ku aasan yahay suudaan aba ayub alansaari ree madiina ayuuhaa istanbul buu ku aasan yahay abi waqaas ree madiina ayuuhaa siin buu ku aasan yahay cabdiraxmaan alkhafiqi ree dimashq buu ahaa faraas buu ku aasan yahay bilaal ree makuuhaa wuxuu ku aasan yahay dimashq kam min asaxaaba caalamka ku aasan kam muslimiina dalkan maanta ku aasan laakiin hadafka asxaabtu u socdeen iyo hadafka muslimiinta maanta u socdaan waa laba aan islahayn oo isku dhoweyn weeyaan saamaxa hoosta waxba aygu qabanina hadafkay u socdeen iyaku iyo hadafkaan maanta u soconno iskuma dhowo walaalayaal lidaalika waa inaan niyaddeena bedelnaa dalka niyaddaan ku imanay waa inaan bedelnaa waa ilaa haddii kale khatar baan ku jirnaa niyaddeeni waan bedelaynaa maxaanu bedelaynaa inaan dalkan joogno laakiin aan diinta ilahay ka shaqayno oon ka bilowna shaqada diinta muslimiintii hor dalkan timid ime aaway dadka yimid dalkan ayna hum maanta inta soo galaysa maskiidka ku farxin ziyaaraadka bax jawladda bax raac jamaacadada dibadda u bax waad yaabi doontaa tastaqrib yaa u soo baxaya innaka halkii nabiga taagan calayhi salaatu wasalaam man lam yahtama biumuuri lmuslimiin falaysa mina buu nebigu yidhi falaysa minhum ninka muslimiinta dhibaatadooda ka walwalin ka murugoon naga mid maha buuhi annaka ama muslimiintaba ka mid maaha dhibaatada ugu weyn ee islaamka haysata waa maxay bucdu can iddiin dhibaatada ka weyn waa dhibaatadee ilaahay oo laga fogaaday dhibaatadee ka weyn allah ina fahamsiiyo dee niyadda ma bedelaa haa dhahada dee bal u ciila niyaddii waan bedelow gacanta taag mustaacidiin dhahada oday baa beri nagu yidhi wacdigiinaasi uu macaan yahe bixitaanka on maad ka reebtaanaa buu yidhi kollay meel hoo u baahan hadal wax ma ka taraa yaa saafir tajid ciwadan caman tufaariquhu wansab faina ladiida alcayshi fi nnasabi inii ra'aytu rukuuda almaa'i yufsiduhu in saala taaba wain lam yajri lam yatibi alusud lawlaa firaaqu lardi maftarasat wasahmu lawla lqawsi lam yusibi buuhi imaam shaafici libaaxu muxuu libaax ku noqday kayntiisuu libaax ku yahay muslimku wuxuu qiimo ku yeelanayaa markuu ka shaqeeya shaqada diinta hadday biyuhu fadhiistaan waxaan ogaaday buuhi imaam shaafici biyuhu inay xumaanayaan hadday socdaanna inay biyuhu daahir yihiin cidda kalena ay daahirinayaan ummaddan socodkay qiimo ku leedahay walaalayaal fa insha allah niyooda inaad socotaan ziyaarta dadka socda nebi maxamed baa socday calayhi salaatu wasalaam khayru man daba calaa wajhi alardi waa ina cabdillaahi weeyaan ma ka fadli badan tahay adigu wa qaaluu ma lihada arasuul yaakulu aطacaam wayamshi fi laswaaq lawlaa unzila ilayhi malak fayakuuna macahu nadiira waa maxay kan suuqa wareegaya nebiga lagu yidhi u wareegay halkay joogaan buu dadka nebigu ugu tegay dadku waa laba weeyaan muqbiliin iyo mudbiriin dad khayrka jecel iyo dad khayrka aan jeclayn iyo maa badan 90% ma soo galeen masaajida dacwadda waa maxay dacwadda masaajidka laga jeedinayna waa dacwatu raaqibiin baa la yidhaha dacwadda dibadda la tegayna waa dacwatu hayr araaqibiin baa la yidhaha labadana waa loo baahan yahay barkadda biyaha haddii laga darsado biyo lagu shubi waayo maxaa dhacaya
haddii dadka dacwadda loogu yeedhi waayo masaajidda inta soo galaysa way dhammaan way dhoofayaan mid baa dhiman mid baa noqon mid baa xanuunsan mid baa waalan masaajidka xidluu ka soo bixi marka waa in la helaa dad shaqadii dibadda qabto ummadda kusoo xidha culammadii masaajidda marka jamacaadku wax kale lama socdaan wax jadiida ma wadaan mujtamacan iyo waxaa isku xidhayaan iyo culummada masaajidda faham walaal famarka allah ina waafajiyo allahna inagu anfaco le jamaacaduna bari weyna la joogaana soo ziyaarta usbuuc kadibna kanada inay u gudbaan baa laga yaabaa waana nii soo noqon doonaa dee wixii diyaara inay ile martidu xaq bay leedahay ma tahay samaa ya dee martida in la yar dhaweeyena xaq bay u leedahay maxaad u dhaweyn laadihin isku noqda in sha allahu tacala waan ila joognaa allahna khayrkana waafajiyo wa sala allahu calaa sayidina muxamed